waxaan odhan karaa wax badan oo farqiya ayaa jira maxaan ku dhahday galbeedka marka la joogo waa ciladii isla shaqayn la'aan maskaxdii iyo diyaar aan u ahayn ninkii maaragtay wax badan shaqadii diyaar u ahayn guriga inuu wax ka qabto gabadhii maaragtay iyadiina imtixaan badan intuu helo qaylo badan oo mararka qaarkood ay dhici karto iyadii ninkeedii inay isku dhacaan taasina ay keensatay inay isku adkaysan waayaan ay kala tagaan gacmaha isqabsanayaan bannaanka u bixi karaan makhaayad bay aadi karaan gabadhiisa maad aragtay meeshu doonuu la mari karaa mujtamacu lama yaabayo tan laakiin mujtamacii baaba la yaabayaba gabadhii inuu qabiib hadduu waddada la maro waaba lala yaabaya ma garatay waxaa laga yaabaa gabadha inay jeceshahay ninkeeda aysan ku oran karin oo ku jeclahay hibo cumar iyo axmed sheekh jawaari waa lamaane isjecel isna qaba lamaanahan oo wada aasaasay xarun dhiirigelisa la talisa waayagnimo ku biirisa qoysaska ama lamaanayaasha iyo daayarta uu u socdo xidhiirka gogolxaarka marxaladda guurka ka hor axmed iyo hibo waxay degan yihiin dalka ingiriiska isla markaasna waa halka ay ka aasaaseen xaruntan dhowaan ayay soomaaliya soo gaadheen iyagoo la kulmay soo dhoweyn xambaarsan xiiso iyo farxad bulshada ku nool Soomaaliya waxay in badan ku soo noqnoqday wafti ka socda maamul ama siyaasi iyo wafti uu hogaaminayo oo la soo dhaweeyo balse Hiba iyo Axmed ayaa dareenkaas iyo marxaladaasba sabab u noqday inay bedelaan toddobaadyo ay ku safrayeen Soomaaliya waana taxiisaha u yeeshay kulamada ay la yeelanayeen qaybaha kala duwan iyo ee bulshada iyo soo dhaweynta aysan filanayn ee loo sameeyay arrin kale oo taas hadaysan u dhigmin ka sii miisaan weyn ayaa ah ishqiga lamaanayaal isjecel oo Soomaaliya oo caan noqday hore umaysan dhicin kobaca farxadda iyo kalgacalkoodana ka sheekeynaya sababaha uu tisqaaday ama uu guuleystay ku darso oo dadkana la wadaagaya talana ku siinaya sida loo barbaariyo ama kor loogu qaado horumarka qoysaska iyo lamaanayaasha ku dhibaatoobay dhirindhirinta hamigooda iyo kuwa ku foogan inay iminka nolosha wadaagaan labadan lamaane oo bog cusub u furaya nolosha iyo taariikhda jacaylka guuleystay ee Soomaalida iyo ka ay ku dhaqmaan waqtigan oo ay qoyska noqdeen iyo talada ay bulshada la wadaagayaan waxa saldhig u ah diinta islaamka iyo sunnaha nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha noqotee kulamada ay qabteen ayaa waxa ka qayb galay boqolaal qof kuwaas oo ka faa'iideysanayay talooyinka ay bixinayaan dad kamid ah kuwa ka qayb galay kulamadan siiba kuwii ay ku qabteen Puntland ayay soo jiiteen khudbadaha afkaarta iyo su'aalaha la isdhaafsaday qalabka warbaahinta Soomaalida ayaa warar iyo barnaamijyo badan ka diyaariyay Hiba iyo Axmed hadalhaynta ugu badanna waxay ka noqdeen fagaarayaasha dadku ay ku kulmaan Axmed iyo Hibo oo aan la kulannay ayaa si qoto dheer uga sheekeeyay marxaladaha ay isla soo mareen sababaha keenay inay xaruntan aasaasaan caqabadaha ka hor yimid iyo horumarka ay gaareen iyo waliba halka ay higsanayaan bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore aad baan idinka mahad celinaynaa Core Films fursadan qiimaha badan leen lagu wareysanaysay aragtida curinta fikirkan in la sameeyo hay'adan oo la gaarsiiyo dadka farxadda qoyska waxa iska lahayd gacdishadayda Hiba Cumar Geelle ka bacdi markaan waxyaabo badan oo kala duwan aan sameynay waxa ugu horeysay oo soo tuurnay wuxuu ahaa love challenge clip yar oo la yiraahdo oo aad rajaynay inaad qaarkiin aragteen waxaan ka ku soo tabinaynay xadiis oo aan rabno dadku inay noloshooda ku dhaqaan gaar ahaan dadka isugu dhowna waa dadka qoyska isku ah yaani lamaanaha wuxuu ahaa xadiiskaasi aan soo dhignay love challenge tahaadu tahabu waxaan markaa laga bilaabo qoysku wax ka bilaabo nin iyo xaasiyaha isa siiyaan hadiyada ilaa ay ka gaarayso madaxda oo maaragtay sida idinka hadda Puntland Dr. Cabdiweli Gaas iyo xaaskiisa iyo wasaaraddiisa maxaan ku dhahday xukuumaddiisa aan idhaahdo طبعا Soomaaliya Djibouti Ethiopia meel walay Soomaali joogto Kenya in laga bilaabo qoys ilaa kor ay u kacdo anagu 20 sano hadda reer leena marka 20 ka sano waxa ku jirnaa alxamdulillah ilaahay ma hadda iskale ilaa ma hadii ay tahay sidaan ku bilownay baan ku soconnaa waxaan isweydiinay marka maxaad ummadda la wadaagi kartiin oo uga tagi kartiin waxa badan oo ka shaqeynaa way jirtaa oo horumarinta bulshada laakiin waxa dadka taabanaya noloshooda waa maxay aayad quraan ilaahay wuxuu leeyahay wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith marka aayadaas baan dhinac ka galay waxaan idin nicmad maxaan haysanaa
waxaad haysatiin wax qurux badan waxaa qurux badan guryo ma laga yaabaa inaad haddaad la wadaagtaan inay qurux badnaadaan waa maxay waa isfahanka waa kalgacalka isku dhibrinta marka intaasaan jeclaanay inaan anaguna idinla jeclaanay idinka waad soo gudbino marka taana waxaa sabab ka ahayd hibo kolka horeba sidaa Axmed sheegay dacwadan ku jirnay horumarinta dadka ummadda in la wacdiyo in ummadda khayr loo horseedo wax la tuso wax loo sheego marka taasi waa iska guud ahaan laakiin waxaan jeclaysanay wax khaas ah meel khaas ah inaan abaarno oo meeshaas uun ka mid dhalino oo meeshaas ma dartay ay noqoto wixii dacwadii iyo maartay wax qabadkii uu Ilaahay noo abuuray in qof walba sabab uu Ilaahay adduunkan u keenay sababtii lagu keenayna wixii aad ku qaban lahayd Ilaahay ku soo raacinaya marka cilaaqada naga dhaxaysa iyo maxabada iyo kalgacaylka iyo wanaaga Ilaahay nagu manaysto waxaan awoodayna ku keensanay maahan taas waxay noo fudaydisay inaan ka warrami karno inaan u sheegi karno inaan dhalinyarta jiilka yaryar ee ilmahan dhalnay laga aan bari karno guurku wuxuu yahay iyo maxabada iyo wanaaga ku jira ayaan taasaan nagu dhalisay waa tahay sida uu sheegay Axmed Sheekh Axmed xadiiska ugu horeeyay ka hadlayseen iskacaylka iyo wada noolaashaha iyo qoyska ama iyo hadiyada qaab la isku siin lahaa maxaa fiin idinka soo noqday dareena wallaahi waa ma sha Allah sawirka yar amba clipka yar internetka ku jira waa la wada heli karaa love challenge baan u saarnay waxa weeyaan in hadiyada la isa siiyo hadiyadaasi Axmed wuxuu hadiyadii igu keenay barkin ay ku qoran tahay waan ku jecelahay marka runtii maaha hadiyadu inaad dahab la isa siiyo inaad wax weyn la isa siiyo maaha wax yar oo kooban baa qofka siin kartaa oo aad la jeclaan kartaa dumarkuna sidoodaba waxay jecel yihiin maalin walba Ilaahay keeno in la soo xasuusto in wax yar loo keeno in telefoon loo soo diro Soomaa Jawhar in ma aragtay sidaas wiilku kolba soo xasuusto soo waco marka waxay nooleynaysaa cilaaqada iyo xiriirka labada qof ka dhaxeeya barkintaas waan ku jecelahay ay ku qoran tahay waxay dhalisay buuq badan dadka qaarkood way ku farxeen dadka qaarkood way yaabeen waxay isdheen xataa waxa kamid ah inay yiraahdaan ninkan weyn ee Ilaahay inta ka dhigay maxay tahay barkinta wala soo shirtagay ma adduunku wuxuu hadidka inuu waayay Soomaaliya hadaan nahay dad qaniyaana dad qalbiga qani ka ah oo xoolo weyn jecelina bixino wax weyn inaan dadka u sameeynaan jecelnahay laakiin waxaasi waxa ka haboon in aan joogto ka dhigno wax yar oo kooban dadka qaarkoodna waxay dhaheen in ma daragtay iyaga isku jawaabaya dadku iyaga isku jawaabayay Facebook-na way ku jirtaa maxay hay'ad aniga hadii laba dacas ah oo waan ku jecelahay ku qorantahay leesisi way ugu filantay laana meesha la socdo maaha shayga maaha xasuusta waaye in lagu soo xasuusto inuu qofku maskaxdiisa aad ku soo dhacday inuu wax kula damcay marka taasa ka dhalatay dad badan waxay isweydiin karaan haddii hore idin weydiina waa meesheeda in Arab iyo labadan baa isku dhow way isqabtaan Hibo iyo Weli Axmed marna ma isqabtaan waa su'aal runtii aan filayo qof kasta inuu isweydiiyo waliba ku qoys ku jira iyo ku rabo inuu diyaariyo cabsi badanna mararka qaarkood yaani guurdoonka ay ku haysa arrintaasi waan isqabanay marar badan isqabashadu waxay qayb ka tahay kala duwanaanshaha labada qof marka kala duwanaanshahaas wax badan ku jira marka waxaad ku kala duwan tihiin ma aha kaliya muuqaalka sare waxaad ku kala duwan tihiin damaca doonista yaani araga fikradda inaad wax soo bandhigto waxbaad keeni waa lagu diidi maxaad sameyn marka meel qasbi miyaad feertami dadka qaarkood way qasbaan moogta xoog bay maaragtay isku dayaan inay qofkii ku mariyaan marka waxaan ku badbaadnay runtii in qofku marka uu wax rabo miiska uu soo saaro in ay jirto arrin ah markeeda horeba aad ku tala gasho oo ogaato qofkani inuu kaa duwan yahay waxa aad soo wado inay dhici karto in lagugu diido rag badan waa laga yaabaa inay la yaabaan yani oo ay yidhaahdaan muxuu ninkan ka sheekeynayaa marka cilmi bay u baahan tahay khilaafka in la maareeyay waa aqoon aniga iyo hiban aqoontii waan doonanay koorsaan aadnay waxaan lana baray markaan aniga rabo in aan wax helo sideen ku raadsadaa qaabkee dariiqeen u maraa laynama barin deenaga laynama sheegay waxa jirta in Soomaalidu maamaha qaar waxa jira wanaagsan qaarna waxay moodaan inay dariiq si la tilmaamo xun ay tilmaamayaan waxa jirta maamaha tirada nin iyo naagti xolna maaha nabadna maaha waa maamaha la sheego marka dhanka diinta la fiiriyo inay yihiin mid aan fiicnayn arrintaas in dadkii dad dabeecada aaminsan baa wuxuu sheegaysaan inaad ka saartaan oo aad ka dhaadhicisaan intee leg bayd ku qaata keed marasa annaga horta
waxay maamaadaas hortay baxday annagoona jirin yani way naga horreysay ilaa maantana dadka qaar way ku dhaqmaan gaar ahaan geeska africa waa lagu dhaqmaa waxaan oran lahaa marka mahmaahdaasi waxay ka hor imanaysaa sunnadii oo haddii sidaa loo qaato yana tooska ah nin naagti nabadna maaha colla ma aha maxaa lagu wada noolaya marka haddayna nabadana jirin colaadana jirin yani waxa ka duwanay lagu noolaya waa maxay in colaadda sida looga baxo iyo isku dhaca sida looga baxo colaadna lama dhigi karo waa isku dhac waa runtii isku dhaca sidii looga bixi lahaana in la barto unbay u baahan tahay yaa waxa weeyaan haddaad og tahay inuu qofkani qof kula mida uu yahay haddaad aaminsan tahay qofkani qof kaa hooseeya oo maad aragtay wanaag adigu aad u samaynaysid isaga dhankiisa waxba ka imin haddaad tahay saa doontaad ula dhaqmi laakiin haddaad og tahay inuu qofkan garabkaaga yahay midig ood ka maarmayn isaguna uu kaa maarmayn si waxaad ula dhaqmi qof kula siman ma garatay ayaad ula dhaqmi dabacaaguna uu isbedeli doonaa waxaad u tihiin dadkii ugu horreeyey ee hadda waqtigan iminka cusub ama qarnigan soomaalida aragtay si dhaba isku jecel oo weliba saa sheegteen dadka diinta iyo dhaqankeena suubanna saligu yahay labadina waa sheegteen inaad diinta marka hore aad fidinayseen oo qayb ka qaadanayseen waxaa jirtay baan ku weydiinayaa ninka ragga ah waxaa loo ogol yahay inuu guursado 4 gabdhood hadda waxaad tihiin labadiinna unbaa isqaba oo xaaji weli kale uu guursaday hadday arrintaasi timaado oo uu sheekh axmed guursado dumar kale sidee u arkaysaa mise dareenkii dumarka ku badnaa weli waa jira horta dareenkaa waa dareen dabiici ah ilaah baa ku abuuray qofka bilaadanka qofna haweeneyna ma jecla ninkeyga in lala qaybtamo taa maskaxdaa lagu hayo marka maxay keensanaysaa taa markaad maskaxda ku haysid inaad ogolaatid xanuunka iyo dhibta ay dareemaysa gabadhu marka lala guursado inaad fahantid maxaa ka maqan biilkii waan siiyay maxaa ka maqan waan u soo hoydaa guriga waan imaadaa looma baahna waxaan hooyasho iyo biil maaha waa qalbiga wax ku jira xanuunka qalbigu ka imaanaya guurka labaad markaan u soo noqdo waa wax ilaahay jideeyay oo ummadda muslimiinta loo fasaxay inay 4 guursadaan waxaan ognahay diimaha kaloo dhan boqolaal bay guursadaan ma garatay diinka islaamku wuu baxadeeyo waa diinka kaliya 4 ku soo koobay ma garatay kuwa kale hinduuska iyo dadka kale waxay doonaan bay sameeyaan 10 buu la guursan 100 buu guursan hadduu doono cid ka celinaysa ma lahin yaa marka waxa weeyaan guurka labaadna sabab walaalkay sabab baa loo sameeyey sababta loo sameeyey waxa weeyaan in la ogaado maaha waan iska doonay maaha ana waxaan jecelahay gabdhaha inaan la weydiin su'aashay ragga la weydiiyo war maxaad u guursanaysaa maxay tahay baahida kuu geysay inaad guursatid yaa wax badan uu axmed aniga iga heli karo hadduu ka tallaabsado gabar kale ka doonto waxa weeyaan macno ma samaynayso laakiin wuxuu ani iga waayay hadduu qof kale ka raadsado aniguna waan ku sabrayaa markaa waan ku sabrayaa waan ogolahay ta kale ee khaaska labadeena dhexdeeda marka loo yimaado aniga axmed waan ka hadalnay guurka labaad wax dhib aanuguma hayso waayo heshiis baan wax ku nahay waxbaan heshiis ku nahay waxa wax khalda waa sida wax loo samaynayo shayga ma waxa xun waa qaabka loo samaynayo iyo sida lagu imaanayo wax lagu tusaayo gabdhaha wanaha la goynayo ee maartay iyadoo 3 bilood la qabin la guursanayo gabdhaha iyadoo maartay ilma imka inta dhashay la guursanayo gabadha ogaanaysa intuu qabay inuu reer kale lahaa waxaasoo kale waa akhlaaq xumo adigu hadalka haddaan soo koobno waa ogasha Soomaha Sheekh Axmed oo kale inuu reer kala sameeyo taas miyaa halka u dhacaya ogolaashaha waxaa ka horeeya doonis axmed horta mar raba inuu guursado axmed hadduu rabo inuu guursado waxa heshiis noo yaala in uu ani iga bilaabo inuu ii sheego inuu aniga i karaameeyo inuu maad aragtay yiraahdo hiboy anna waan ku jecelahay baahidaasina way haysaa qof sida ii karaameeyo uma maleeyano inaan xumaynayo midka ugu weyn jira waxa weeyaan jacaylku qalbigu ku jira jacaylkuna mararka qaarkood waxaad moodaa qalbiga wixii ku jira inuunan qaybsamin laakiin qofku kama dhigna haddii uu qof labaad guursado inuu qofkii labaadii uu guursaday uunan jeclayn nebigu haween badan buu lahaa sala allahu alayh wasalam mid kastana iskeed buu jeclaa moogtahay qaarna uu sii jeclaa levelay kala lahay marka horta dadku inay fahmaan baa muhiima taas midda labaad sida ay hiba inoo sheegtay guurka labaad wuxuu ku xidhan yahin doonis iyo damac raggana waxaan u sheegayaa gabdhuhu inay ogaadaan ragga damac kama dhammaado adoo qababa maaragtay gabar kalena dabci gabdhuhu inay bartaan baa rabaa maskaxda ragga maxaa ku jira maskaxda ragga waxa ku jira gabar baa u sawiran bilicday aad u jecel yihiin gabar Soomaaliyeed la qabo ninkeedu uuna la guursanin horta bilicda ha ku dadaasho inay bilicda ilaaliso sidii markii la shukaansanayo kasbato odageeda iyo qalbigiisa inay kasbato oo ah akhlaaq wanaag iyo dabc wanaag anigu waxaan ku faraxsanahay waxa aan ka sheekaynaynahay ka sheekayso runtii
gabdhuhu qaylada waxay ka keenaan waxaa lagaga dhigaa kadis wax lamana qiimeeyo gabadha ninka Soomaaliyeed wuxuu aaminsan yahay qaarkood waxay aaminsan yihiin inay gabadha leeyihiin waa kii la sheegay hadda qisadii maaragtay 12 geela gabadhii laga bixinayay marka gabadhu 12 geela ka bixiyay maxay ba sheegidee isma wali kartid maaragtay meesha fadhiisan way marka waxaan oran lahaa damaciisa ninku hala wadaaga gabadha hadday dib ku keenayso oo maaragtay dhulku qarxayo process galiyo kaba meelaha kaga keeno farsamada isaga lama rabo farsamo inuu sameeyo magarat anigana dee waaba tiiba ka hadduu doonay farsamo marka hal isugu dawaadan doon idinka wax ka wada hadli doona waxa jirta aan rabeen weydiiyo in dad idinku dibadda ka timaadeen marka horena kula gudaha ka tagteen sida in badan oo ka yihiin waxa jirta dad walwal ku ay ku hayso dadka dibadda dhaqanka dibadda yaala iyo kan gudaha idinku wacyigelin baad iyo kulan baad ka samayseen dibadda gudahana waa idinka yimid oo muqdishona soo maray garowana waa idinka kulan ku qabtay maxaa ay ku kala duwan yihiin qoysaska dibadda iyo qoysaska gudaha jooga oo marka la fiiriyo dhanka maxabada isku xidhnaanta iyo kalgacalka ma aha dhanka kale nolosha horta su'aal kastoo la isweydaayay iyada kaligeed baa buug laga qori karaa oo dee meelo badan oo way ballaaran tahay waxay ku kala duwan yihiin kow cimilada labo dhaqanka halkan dhaqan Soomaaliyeed baa yaala oo waalidkii baa jooga oo waxa jira ixtiraamkii iyo qadarintii baa jirta iyo bulshadii la ixtiraamaya halka bulsho Soomaaliyeed oo aad u tiro badan ma aha yani bulsho Soomaaliyeed kaliya ma aha waa bulshooyin isku yimiday oo kala duwan waxay ku kala duwan tahay halkaas waa cidlo halka qaraabadii dadkii baa kula degan halkaas ixtiraam badan ma jiro oo labada qof ay ixtiraamayaan haday Soomaaliyeed muslimiin ay yihiin mararka qaarkood maxaa yeelay haddii ay ixtiraami lahaayeen wiil waa ii soo diray maalin jarmalka iga soo diray wuxuu yidhi sheekh dadkeenii geeska Afrika joogo cilmi badan aan lahayn oo weliba baadiye joogay oo noloshoodu raf ay aad u adkayd furin ma dhici jira kuwa maanta oo cilmigii iyo wax kastaba haysta fursado badanna haysta markiiba way isfurayaan maynan kuwii hore haba adadkayaan hadday doonaan maynan maaragtay dhinaca ayna kaga fiicnayn dhinaca markaad eegto waa sax waxaan odhan karaa wax badan oo farqiya ayaa jira maxaan ku dhahday galbeedka marka la joogo waa cidladii isla shaqayn la'aan maskaxdii iyo diyaar aan u ahayn ninkii maaragtay wax badan shaqadii diyaar u ahayn guriga inuu wax ka qabto gabadhii maaragtay iyadiina imtixaan badan intuu helo qaylo badan oo mararka qaarkood ay dhici karto iyadii ninkeedii inay isku dhacaan taasina ay keensato inay isku adkaysan waayaan ay kala tagaan dadka dibadda jooga waxa u fudud jacayl inay jilaan wixii aan idhaahno war waxa la sameeyo sidaas la sameeyo waxa la sameeyo way samayn karaan gacmaha isqabsanayaan banaanka u bixi karaan makhaayad bay aadi karaan gabadhiisa ma aragtay meeshu doonu la mar karaa mujtamacu lama yaabayo tan laakiin mujtamaci baa la yaabaya gabadhii uu qabib haddii wadada la maro waaba lala yaabaya ma garatay marka halkan jacayl in lagu jelo inay adag tahan u maleeya laakiin halkan faa'iido waxa la qabaa in reerku uu badbaado laana waa la ilaalinaya waalidkii baa ma aragtay la jecel ka qaba halkaas faamiye ma haystaan oo waalidkii iyo qaraabadii iyo dadkii ma joogaan laakiin waxa u fududeynaysa inay iyagu hadday isfahmaan way ku badbaadayaan baan isleeyahay runtii khudbadu xasaasi bay ahayd runtii aad bay xasaasi u ahayd oo waxaba igaga soo dhaxbaxdayba dadku inay runtii ay magaranaysaa jacayl u baahan yihiin waxa igaga soo dhaxbaxday dadku inay magaranaysaa jacayl iyo naxariis ay ku jirto laakiin ay ku jirto xoogaa is adkeyn markii laga yimaadaan ay ku jirto xoogaa inay rabaan casharo iyo tareyniyo tababar يعني سيدا أكسونها مركلي لدهو هويوين ama dadkii annagana dhalay runtii waa la isku ursaday jacayl meel lagu dhigay wax lagu dhigay meesan arkinin macnii nolol baa la soo wada maray laakiin jiilkan maanta la joogo maanta teknolojiya casriya jirta wax walba maanta u isbedeshay ilmaha markuu basa u qaangaaro ama aad uu soo dareemo inuu qaangaaray baa waxaad ka dareemaysaa inuu qofkan isla markiiba u baahan yahay baahiya dareen uu dareemayo uu u baahan yahay inuu dareenkan ya baahida meel ku guto isla markaasna uu rabo inuu reer iyo xaas sameeyo horta dadku de markayna arkeen qaarkoodna way la yaabay qaarkoodna way ku farxeen labaduba way jiraan hadda dhow baan sheekh kulanay runtii bulshada Soomaaliyeedna caanka ahoo laga dhex yaqaano wuxuu noo sheegay mawduucan aan bilownay in uu bilaabay dood fara badan dadka qaar baa maaragtay waxay yihiin dad ku adag dhaqanka oo waxani ay u arkaan wax cusub oo maaragtay reer galbeeda inay tahay dadka qaar baa waxay u arkaan inay tahay wax badbaadinayso oo soo celinaysa qoyskii wanaagsanaaba
isku hayntiisii marka way jiraan way kala duwan yihiin laakiin annagu weli wax yani dhibaato ah kalama kulmin wax nacaybtinimo ana kalama kulmin waana soo dhaweynay labadaba maxaa yeelay bini'aadanka haddee ka koobanba kala duwanaansho aad baana ugu farxnay runtii in uu mawduucani bilaabo dood iyo sheeki iyo inay qoys ka bilaamato ilaa ay gaadho meelaha dadka hogaamiyaasha culummada dhexdooda waxaana ka soo bixi doonaan rajaynaya inay meel isugu ururtay dhinac u baxdo dadka laakiin saamaynta ugu badan kuula oo kale waxa kamid ah qoyskaaga oo kale sida aabaha walaalada cayladaada ama qaraabadaada kuwaas oo kale si warkeed horta runtii taageero weyn baan ka helay iyo duco laakiin dee boqolaal maadaama ka maqannahay boqolaalkood labana wada hadal intii aan ka helay informationkooda waxay ahayd positive yacna wax ijaabiyo wanaagsan way noo soo duceeyeen ducada waa cajiib soo waxaa moodaa gabdhaha Soomaaliyeed ama Soomaaliya dadka maanta jooga burburku inay gabdhuhu hadal hays ka dhigteen ifur yani xoog ay u noqotay gabadha inay ifur soo wixii iigu qosolka badnaa aan ka faa'iido waxay ahayd waxay tiri ifur waxay ka wadaan ifaham يعني gabar haday ku tiraado ifur waa ifaham soo marka aad bay muhiim u ahayd barnaamijkaas inay ragana ay dhigeystaan oo gabdhaha markii ay xoog ay ka dhigtaan yani xeelad kale ma haystaan ma ogtahay ay xoog ka dhigato tiraado ifur inuu u fahmo ifahan oo runtii dhaqmaad wanaagsan uu siiyo anaku cilmi baan faafinaynaa dad baan wax baraynaa ma garatay na arkoona maqla ma lihin ma garatay wax annaka inaan dareenkayaga iyo wanaagga naga dhaxeeya ummadda ay arkaan ma u baahnin taas mana soo bandhigayno laakiin in reeraha la badbaadiyaan rabnaa marka waxay noo arkaan dad macallimiina oo wax baraya aad bayna u soo dhaweeyeen aad bay u soo dhawaana lagu farxay waana qorshe culus yaana la moodayna wax fudud galnay wax aad u culus baan faraha la galnay oo dadku ma aragtay wali conservative ay yihiin ay qaarkood sida wax ma sheegay ay moodayaanba waxaan inuu qurbo ka yimiday wax qurbo ka yimiday ma waa diinkeeni baan boorka ka jafaynaa aan ilawnay iyo dhaqankiisu banaa ma garateen marka waxa weeyaan wax dhibaato kale ma kulm ilaahay uu noo fudeydiyay wallahi ilaahay noo fudeydiyay istiqbaal wanaagsan waan helnay ummaduna waa soo dhaweysay qof ya laba wuxuu sheegana wax macna ku fadhiya ma soo aad baan ugu mahad celinayaa Sheekh Axmed Jawhari iyo Maama Hibo waxaan leeyahay insha Allah dad badan ama guryo badan yani runtii barnaamijkiina way ku intifaaci doonaan waxaan kale ka codsanaynaa in mar labaad iyo mar saddexaad ay soo laabtaan waxaan kale ka codsanaynaa in mujtamaceena ama madaxdeena ama dadka runtii shuyuukhdeena inay barnaamijyo iyo macaahid ay sameeyaan hata tusaale ahaan aniga ka Caaisha ahaan waxaan sameeyaa ama waxaan tababaraa dumar waxaan baraa cunnada waxaan ogaaday cunnada inay qayb ka tahay waxyaalaha lagu soo jiida qalbiga ninka soo marka gabadhii hadii ay cunnadii baratay ay ninkeeda ku soo jiidan karto halkaana diintii ay ka baratay yani xuquuq soo jeenka wuxuu ahaa runtii guriga burburen wax badan bay ka bedeli kartaa markay dhageystaan talooyinka lagu wacyigelinayo familiga jira iyo kuwa isdoonaya iyo kuwa rajadoodu tahay ku haminaya in iskursadaan wax isku keeni kara ama isku soo dhaweyn kara wax kasto dhexdooda ka jiray oo inqilaab ama jaceylku inuu jiro baan aaminsanahay yimaadana markii labada qof qoys sameystaan gudaha guriga ka dhex yimaada markaas waxa laga yaabaa gabadha inay jeceshahay ninkeeda aysan ku oran karin oo ku jecelahay waxa laga yaabaa haduu ku dhaho tusaale ahaan waa ku jecelahay inuu yiraahdo aniga maxaa ii jeceshay ama haduu dhunkado oo ay dhunkanto kale inay tiraahdo anu kitaab miyaan ahay maxaa ii dhunkanaysaa soo marka jaceylka wax jira waaye waana loo dhintaa hadii la rabo in loo dhinto waa loo dhintaa jaceyl waana wax jira waan aaminsanahay haduusan jaceyl jirin in runtii isu guri jirin yani jaceyl guri aanan oolin runtii guri maahan waxay noqonaysaa guri baahi lagu guto isla markaasan ilmo kaliya la iska dhalay noqonaysaa laakiin hadii jaceyl jirto runtii horumar badan hada tusaale ahaan oo kale gabar iyo wiil isqabo oo kale jaceyl haduu dhex yaalo gabadhaas ama wiilkaas horumar badan buu gaaraysaa waxa la yiri kullu rajulin cadiim waraahu imraa nin walba oo wax ah maanta ama nin walba oo wax ah waxa ka dambeeysa haweeney baa soo saartay sidoo kalena gabar walba oo wax ah nin baa ka dambeeya